waxaan rabaa inaan wadadan ugu magac daro Jazeera qof kasta oo dadaal noocaana dalkiisa geliya hormuud ka noqdo hawsha noocaan oo kale ana waxaan diyaar u nahay wadada halka aan ka sameeyno inaan ugu magac daro بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ما هذا سكله ما أنت وحن فرينا وضدي لا أنت صدحات قصور أو كسو بلا ميسي لنا عمل أو وسعته فونيها دكان كي يبزديد كأدنيد إلى ما هذا سكله وضاس وأنا بلا بطي arkaawadi baan saaray waa la hagaajiyay waxa iska kaashaday dadka xaafadda degan iyo dawladda hoose ilaahay baa mahad iskale aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maamulka dhammaan intii ka qayb qaadatay lacagtooda ku bixisay waqtigooda ku bixisay waxaan leenahay jazaakumullahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan kusoo dhawaynayaa قناعسده أحمد الجزيرة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المركب كوباد إلهي بام هاتسكله سبحانه وتعالى نود ما يبشر رمضان أنا ونبض قبنا وعفمات قبنا مركب لبعضنا وحن ساك إن شاء الله تعالى شوقنا وضدي عصبيد وكسول لحنيسي تلسك بوليسكا مريسي هوتيل الجزيرة هوتيل سهن مساجك رمضان كدبنا كقد عيسي فونيها ودada kale oo laamiga hore ah wadadaas runtii waxay ahayd wada xaniman oo xiran oo guriyo aad u fara badan ay ku xiran yihiin ilaa 7 guri waxaan u mahad celinaynaa marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo arinta qayb ka ahayd oo kharash ku bixisay oo gurigeedii in la jabiyo aqbashay oo tala keentay baan u mahad celinaynaa waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa duqa degmada Xasan Ilaahay ha barakeeyo oo runtii hadda intii yareedo oo magaalada joogeen isbedel dhab ah ay ka bilowdeen dhinaca wadada oo wadooyinka wadadaana lahaa maaragtay taladii koobaad markii la unkay wixii aan ku dhiiranay oo ahayd inuu GBLG-gana siinayo oo laami laga dhigayo qaybta koobaad oo jabintii guryaha iyo carrakaawadana ay contribution dawladda hoose ka qaadatay xaafadda iyo dawladda hoose iyo shirkadda Kabeerko saddexdaas ay iska kaashadeen guddiga iyagii ka shaqeynayay oo aniga iyo Maxamed Faragaab iyo Dr. Aadan iyo Sheekh Cabdiwali iyo raggii sida khaaska uga shaqeynaya inta maqaniyiinta joogto oo mahad celinaynaa dawladda hoose iyo injineeradeeda iyo madaxdeedana si gaar ah duq ugu horeeyana waa u mahad celinaynaa shirkadda Kabeerko waa u mahad celinaynaa wadadii gudoomiye waad naga maqanayd maalmahan dambe shaqada waa nala bilowday laakiin waxaan naga aaday cimrada ku soo dhawow maanta sida ay tahay waad soo kormeertay waxaan rajaynaynaa hadeed magacna inaad u bixisid ilaahay idankiis laamigiina aad saartid xaafaduna waa ku ducaysay marka tilaamaan saarina wax u aqbaleen guryahooda inay jabiyaan laamiga ayagoo ku faraxsan alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaah baa noo hirgeliyay habaynta wada 700 oo mitir ah oo ka soo bilaabata saldhigga booliska qaybta booliska saldhigga booliska dhexe ilaa ay ku dhamaata fooneeyaha ma ay ahayn wado intaan hore ayay wado ka ahayd dhexdoo dhan way xirnayd guryaha ka dhisnaa waxa la jabiyay 7 guri iyo waliba baraago ayaa la jabiyay oo dadkii dib qaarna loogu dhisay inta badanna ay u dhisteen waxay initiative ama fikrad ka timid dadkii deganaa deegaanka oo is abaabulay aad baan marka hore Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo hirgeliyay kadib mahad celintiisa waxaan u mahad celinayaa guddiga hawsha soo xil saaray gaar ahaan Axmed Jazeera dhinaca galbeedka markaa joognay Axmed Boorsa loo yaqaanay oo runtii waqtiga ugu badan geliyay team leaderna ka ahaa guddiga hawshaas qabtay aad baan ugu mahad celinayaa mahad celinta labaad
ama saddexaad waxaan siinayaa saaxiibbadii deganaa deegaankaas ee waddada u baahnaa ee aqbalay in guryahoodii la jebiyo maanta xilliga aan joogno oo dadkii aan ognahay sida laxjeclada iyo dhulka ay ku tahay in qof ogolaado inuu gurigiisii jebiyo weliba asagu dhisto wax sahlan maaha aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa weeye baraarugga iyo fahanka dadkeenna ee waddooyinka ayaa soo kobcaya waxaa jirtay xilli technical la isu qaadanayo la isu leynayay waddadan laami marin maysid waa waddo laami la marinayo maanta waxay joogaan dadkeennu inay baraarugeen oo fahmeen macnaha waddooyinka inay ka qaalisan yihiin waddooyinku guryaha ay dhisanayaan oo ay ku raaxaysanayaan taas ayaa keentay inay guryahoodii jebiyaan waxaan leeyahay reer gaalkacyo tusaale wanaagsan weeye ku qaata waddadan maanta aan taagannahay tusaale ku qaata waa horumar meel kale horumar kuma jiro waa intan aad samaysataan waay lacagtii ku baxday kalabar markii la yidhaahdo waxaa bixiyey guddiga hawshan isu xil saaray gaar ahaan dadkii deegaankaas deganaa ayaa lacagtii iska aruuriyey oo bixiyey meel oga timid ma jiro hay'ad kama sugin GBLG kama sugin cid ay wax ka sugeen ma jirto horumarku waa saas wey ayagaa dadku samaysta horumarkooda way samaysteen boqolkiiba kontonka kalena shirkadda waddadan dhistay Kibako iyo dawladda hoose ayaa bixisay annagu cashuur kaliya ma rabna inaanu qaadno waxaan rabnaa inaan dadka wax ku celino haddii Allah awoodda ogolaado hadafkeennuna waxa weeye inaanu dadkeenna wax ku celino si mushaarkeennu xalaal noogu noqdo haddii Allah awoodda waa sii wadaynaa waddadan waxay ku tahan u malaynayaa 9 waddo oo u qorshaysan inaan saarno laamigi bishaan ama bisha dambeed waddadan waxay ku jirtaa baan u malaynayaa qorshaha bisha 6 ama 7 ayay ku jirtaa haddii Allah awoodda ogolaado barnaamijkan GBLG-ga laami baan saari doonaa laakiin waddooyinka inta kale iyo barxadda weyn oo hadda aanu samaynay oo loogu talagalay boostooyinka gaadiidka gobolada iyo degmooyinku inay ka baxaan kuwaas hawshooda waxa weeye hadda waa diyaar weeyo haddaan samaynaynaa alxamdulillah ilaah baa nagu guuleeyey waa wax runtii horumar ah oo lagu faani karo waxaan rabaa inaan iraahdo waddadan maadaama uu ahaa shakhsiga ugu dadaalka badan ku bixiyey waddadan Axmed Jaziira waxaan rabaa inaan waddadan ugu magac daro Jaziira qof kasta oo dadaal noocaana dalkiisa geliya hormuud ka noqdo hawsha noocaan oo kale ana waxaan diyaar u nahay waddada halka aan ka sameeyno inaan ugu magac daro waddooyinka aad arkaysaan adduunka oo meel kasta ku qoran dariiqyada la maraya magacyada waa dadkii ka dambeeyay meel kale ma meel kale kama imaan waa dadkii fikradda iska lahaa ama hirgeliya hawshaas weeye waddadan waxaa la yiraahdaa maanta laga bilaabo aan daah furnay oo maanta aan furnay laamigeedana insha Allah in furi doono xilli dhow waxaan u bixinay haddii Allah awoodda la ogaado Jaziira saas ayay ku mutaysatay marka waana kaaga mahadcelinaynaa cid kasta oo dalkeeda contribution samaysana waxaan rabnaa inaan sidaa ugu mahadcelino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu